waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maqal dadkaaga oo telefishinka qaranka aan idinka soo baahino. waa barnaamij ay xubnaha sarsare ee dowladda gaar ahaan wasaaradda iyo dadweynuhu ay isku waajahaan weydiimo iyo warcelin iyo wixii talooyin ay bulshadu ay u hayaan dowladda ee qaranka lagu hagaajinayo ama lagu dhisayo ama galdaloolooyina. barnaamijkan maqal dadkaaga waxaa igu martiya wasiirka qorsheynta qaranka ee dowladda Somaliland Dr. Saad Ali Shire. waxaa isaguna nala jooga oo nagala soo qayb galay barnaamijkii kan koreya nagala qayb galay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiwaaxid Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo isna barnaamijka nala jooga dadweyne aqoon-yahan dhalinyaro u badan oo ka kala yimid jaamacadaha dalka siiba jaamacadaha Hargeysa University iyo jaamacadda Alfa siiba. waxaan aad ugu mahadnaqaynaa labada jaamacadood. jaamacadda Alfa ayaa martiqaadkii aan u fidinay iyaguna si fiican nooga wada aqbalay oo ay u badan yihiin dadka aqoon-yahanka halkan nala jooga. waxaa kaloo iyaguna ku jira dhalinyaro madax bannaan oo aqoon-yahana oo barnaamijka maqal dadkaaga nagala soo qayb gashay. barnaamijka ayaynu bilaabanaynaa. waxaan marka hore ku soo dhaweynayaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta mudane Cabdiwaaxid. bismillahi raxmaani raxiim. wasiirka qorsheynta qaranka Dr. Saad Ali Shire iyo martisharafta kale barnaamijka naga soo qayb gashay waan salaamayaa. sidaad ka warqabteen waxaa TV-ga qaranka caado u ahayd in mas-uuliyiinta kala duwan ee laamaha dowladda lagu soo casumo halkan aynu caawa fadhino lana soo casumo oo kale dadweynaha reer Somaliland si ay xukuumaddii iyo dadkii soo doortay isaga warhayaan mas-uuliyiintoodu ilo xisaabtamaan afkaar iyo su-aal la isu weydiiyo mas-uul kasta warbixin ka bixiyo wasaaraddiisii ama hay-addiisii u xilsaarnayd waxa uu qabsoomay waxa ka dhiman iyo waxay higsanayaanba. waxaan u mahadcelinaynaa mar kale Dr. Saad Ali Shire oo runtii aynu ka warqabno inuu ka mid yahay wasiirada maanta Somaliland xukuumaddan ragga shaqada ugu culus qaranka u haya kuna ammaanano sida wanaagsan runtii hawshii uu xilsaarnaa uga soo baxay. isagaa warbixin waafiya siin doona intaa kadibna insha allahu tacaala doodaha iyo afkaaraha inoo bilaabmi doontaa. aad baad mahadsantihiin. وياي وزير دكتور سعد علي شري كسودو. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وزيرك سراكيشة تلفزيون كقرنكا مرتي شرفتا انت شاشة نقد دعوانا يستقدق موان السلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيد وزيرك الشاقي أنا وحنا وزيرك قرشين تقرنكا يهرو مركا wasaaraddeedu waxay u xil saaran tahay xog ururinta qaranka, qorsheynta qaranka, xiriirinta hay'adaha samafalka ee caalamiga ah. intaas baa ugu waaweyn iyo horumarka dabcan ayay u xil saarantahay. waxay ka kooban tahay 5 waaxood: waaxda maamulka iyo waaxda xog ururinta amba statisticska, waaxda qorsheynta planninka, waaxda horumarka iyo waaxda xiriirinta. marka 5 qaybood ka koobantay. 3 qaybood waan ugu nimi, 2 qayboodna waxaan ku daray intii aan anigu wasiirkan ka ahaa. wasaaraddu waxay xafiisyo ay ku leedahay iminka 6 gobolba. 6 gobol ee hore, goboladu waa 13, laakiin 6 hore ee waaweynaabay mid walba xafiis ku leedahay. markii aanu kaanunimi wuxuu bay xafiis ku lahayd Hargeysa iyo xafiis yar oo Burco ah. laakiin iminka Boorama, Berbera, Burco, Laascaanood iyo Ceerigaabo 5 gobol ee kale ka baxsan Maroodi Jeexba xafiisyo waaweyn baanu ku leenahay oo koogu yar ay ka shaqeeyaan 5 ilaa 6 qof ay ka shaqeeyaan. intii aanu joognay annagoo ka duulaynaa waxaana loo xil saaray oo qorshaha qaranka. waxaanu samaynay himilada qaranka amba Somaliland Vision 2030. waa himiladeena ilaa iyo 20ka 30ka iyo qorshe qaran oo 5 sanadooda waa 2012 ilaa 2016. waxaanu kaloo samaynay istiraatiijiyad ku saabsan
iskaga filaanshaha cuntada iyo biyaha. waxaanu kaloo sameynay istiraatiijiyad ku aadan xog ururinta. muddada 3 sanadood laftigeeda waxaanu ku guuleysanay inaanu sameyno sharcigii hay'adaha samafalka kuwa maxalliga iyo kuwa caalamiga ah iyo sharcigii statistics kan xog ururinta waan haru jiri jiray. labada sharci midna haru ma jiri jirin. labada sharci aan ku guuleysanay. waxaan runtii inaanu ku guuleysanay inaanu ku qancino deeq bixiyayaasha inay wax ka bedelaan habkii ay deeqday noo siin jireen. habab badan baa deeqaha loo bixiyaa. waxa ka mid ah habka dawladda ay toos ay lacag u siiso oo budgetkeeda u kabto. innaka taalayna ma siiyo maadaama aynu nahay waddan aan weli la ictiraafin. habka kale sida laynoo caawiyaa uu badan yahay waxa weeye waa hab laynoo maalgeliyo barnaamijyo amba projects ama mashaariic. marka barnaamijkii mashaariicda waxa go'aamiya noocyadeeda amba meelaha laga sameynayo iyo sida loo sameynayo deeq bixiyayaasha inta badan iyo fuliyayaasha. hay'adaha inala jooga in badan iyagu deeq bixiyaal maaha. waxay fuliyaan deeq la siiyey way deeq bixiyaasha ka soo qaadeen. marka taa waxbaanu ka bedelay. annaka waxaa nooga wanaagsan in lacagta naloo qoondeeyo nala siiyo annaka inaanu go'aamino waxaanu lacagta ku samaynayno yaanu ku qabsanayno. mashaariicda annaka waa inay naga timaado waayo annakaa garanayna baahidayada annakaa garanay meesha wax looga baahan yahay. taa way nala qaateen qaarkood. sidaa aawood imika waxaa la sameeyey sanduuq ay iska kaashadeen dowladda ingiriiska iyo dowladda denmark. sanduuqaas waxaa imika lagu soo shubay $250 milyan oo dollar. wuxuu soconayaa muddo 4 sanadooda laga bilaabo sanadkan. maalin dhaweyto shir baanu ayaanu tagnay Nairobi oo lagu go'aamiyey mashaariicda ugu soo horeysa ee la doonayo sanduuqa in laga maalgeliyo. waxaanu mudnaanta aanu siinay biyaha, beeraha, xoolaha, deegaanka. intaasaanu siinay horta mudnaanta sanadkan. 6 mashruuc oo ku kacaya ilaa 10 milyan ayaa la go'aamiyey in maxaan idhahdaa la sii daayo amba loo ogolaaday amba lagu heshiiyey. insha Allah waxaan rajeynayaa sanadkan intaanu dhammaanin kuwa ugu horeeya in la bilaabo. marka taas baan runtii waxaan jeclayn deeq bixiyayaasha arrinkaa inaanu inta kale aan weli ku soo biirin sanduuqaana inaanu ku boorno inaanu ku soo biiraan. arrinka laakiin runtii muhiimka ay tahay inaan sheego waxa weeye waxaanu bilownay in aanu daadejinno qorshaha iyo xog ururintaba oo ka daadejinno xarunta oo u daadejinno gobollada. ta ka dambaysa fikirka ka dambeeyana waxa weeye inaan wax walba laga sugin xarunta amba wax walba laga sugin hay'adaha caalamiga ah ee in gobol wal iyo degmo waliba iyadu isku kaashato isku tashato ku tashato muruqeeda maalkeeda maskaxdeeda. way hanti baynu haysanaa inagu. mushkiladda jirta inta badan waxa weeye dadku had iyo jeer waxay arkaan waxa ka maqan amba ka dhiman laakiin waxay haystaan ma arkaan. haddii aynu hoos eegno oo eegno waxaynu haysano amba khayraadka dabiiciga ilaahayna siiyey amba hantida kale inagu aynu haysano waxaa markiiba kuu soo baxaysa wax badan inaynu qabsan karro haddaynu la nimaadno abaabul iyo dadaal haddaynu la nimaadno. marka annagoo taa ka duulayna mabda'a ka duulayna ayaa waxaanu hadda ku guda jiraa inaanu u samayno gobol walba qorshe gaara oo isagu uu leeyahay iyo xog gaara oo sanado isagu uu leeyahay iyo guddi horumarinada isagu uu leeyahay. waayo haddii gobol walba isagu dhinaciisa intuu ka dadaalo horumarka ka bilowdo intaasoo la isu geeyaa way noqonaysaa horumarkii qaranka. markaa hawlahaas baanu inta badan aanu maxaa hadda aanu ku jira kuna guuleysanay insha Allah. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirka bulshada qaranka ee Somaliland Dr. Saad Cali Shire oo martina ugu ah barnaamijka maqal dadkaaga oo aan ku guda jirno. dabcan waxa caado inoo ah barnaamijka maqal dadkaaga in aanu fursad siino dadweynaha si weydiino ay ugu bandhigaan hadday tirooyin hayaan xukuumadana
ay u soo jeediyaan hadba mas-uulka noo yimaada shaqada uu ka mas-uulka yahay waxaa u badan tihiin dad aqoon-yahan ah oo jaamacadaha qaarkoodna dhigtaan qaarkoodna ka baxeen waxaan jeclaan lahaa inaan fursadda idin siiyo anigoon ka gudbayay qaabkaa usoo kala horeyseen iga ogolaada inaan haweenka fursadda siiyo waayahay najma haye magacaaga iyo halkaad ka socoto fadlan magacayga waa najma hiba xasan ibraahim waxaan ka socdaa jaamacadda alfa university college gaar ahaan fakalka management information system anigu hal su-aal baan weydiinaya wasiirka qorsheynta qaranka mudane Siciid Shire su-aasheedu waxa weeyaan horta ugu horeyn wadankeenu san ka warqabno waa wadan soo koraya oo u baahan in gacan laga geysto amba ay gacan ka geystaan wadamada waaweyn ee hore u maray su-aasheedu waxay ku saabsan tahay hay'adda shidaalka ee u qodaysay wadankeena haddaba hay-adda shidaalka u qodaysay wadankeena muddo dheer ayay ku soo jirtay hawshan u qodista shidaalka wadanka maanta markii gabagaba gaadhay hay-addii waxaa dhacday inay si lama filaana uga baxdo wadanka taasoo aan ilaa iminka wax jawaaba aanay ka bixin xukuumaddu kor ilaa hoos annaga lafahanteedana arday ahaan rajo weyn ayay noo ahayd rajo weyn bay noo ahayd hay-adda iyo weliba shidaal qodista iyo horumarka wadanku aniga su-aasheeda waa taa wasiir waad mahadsan tahay wasiir بسم الله الرحمن الرحيم والله سؤال wanaagsan weeye horta waxaynu inaku aynu la galay heshiis shirkadda la yiraahdo Ganel waxa shirkadda wada leh maal qabeeno Ingiriis iyo Turkiga u badan laakiin waa shirkad weyn oo saami leh oo dad badan ay ku jiraan waxaynu siinay shidaalka ka baadho block shirkaddu markaa waxay ku siisay qandaraas shirkado kale baaritaanka bal xaqiijinta marka hore hadda qodistii ma waa xaqiijintii shirkadaha qandaraaska markaa ku siisay sida iyagu ay yidhaahdeen waxay la kulmeen dhibaatooyin bay la kulmeen meelihii ay ka qodayeen markaa oo la xidhiidha xagga iyagu say yidhaahdeen nabadda sidaas bay markaa iyagu ay meeshii ay ka shaqaynayeen ay uga baxeen laakiin sidii ku caddeeda warbixintii wasiirka macdanta iyo wasiirka arrimaha dibadda ay bixiyeen shirkaddii aynu la gallay heshiiska Ganel iyadu kamay bixin heshiiskii keliya waxaa meeshii ka tegey shirkadihii qandaraaska hoose ay siiyeen siday u baadhaan wixii ay ka cabanayeen waa dabcan hoos baa loo eegayaa sidii loo xalili lahaa waa arrin inaka noo yaallo weeye iyaga laftigooda u yaalla way runtii aniga say ila eg tahay iyaga laftigoodu may samaynin wacyigelintii loo baahna caalamkooga dhan meesha lagu qodaayo shidaal amba macdan laga qodaayo wacyigelin badan baa dadka lagu sameeyaa way had iyo jeer dadku waxay u qaataan in isla markiiba wax soo baxayaan oo isla markiiba ay tahay waxaa soo baxa in dadka deegaanka degan ay ka faa'iidaan amba loo qeybiyo wax laga siiyo laakiin waxaan wax muddo dheer qaadanayo weeye 5 sanadood 10 sanadood wax soo baxaya ma oo waxa aan la ogeyn aan laba hubinba inay meesha ku jiraan iyo in kale marka runtii waxaad moodaa inay ka xumaatay wacyigelintu kulay waa duruusta aynu isleenahay way iyaga laftigooda way ka qaadanayaan inaga laftooda duruus baynu ka qaadanaynaa insha Allah si aanay mar dambe aanay u dhicin laakiin shirkadda aynu la galay shirkadaha aynu la galay inay shidaalkeena baaraan ma ha Ganel oo kaliya shirkad kalena way jiraan shirkadihii kale dee weli midna kama bixin inaga mana teganin kastoo runtii sida ballaaran ee hawsha u bilowday Ganel aanay weli iyagu bilaabin haddana dee may bixino may tegino weli maxaan heshiisaan la galay way nool yihiin tii aanu la galayna iyana way noosheeda laftigeedu markaa hata iyanan rajo dhigin waa mahadsan yahay wasiirka qorsheynta qaranka Dr. Sacad Cali Shire weliba su-aashaas waxaa si fiican inagu faahfaahin doona marka barnaamijkan uu ka soo qayb galo wasiirka macdanta iyo tamarta ee Somaliland oo isaguna dhawaan safar arrimaha ku saabsan dibadda uga soo laabtay waxaan
waxaan ku soo celinayaa iyadoo dadka mareegaha escape-ka ku jira ee internetka ee maqalka iyo muuqaalka ay noo dambeyn doonaan oo ayna sugi doonaan waxaan jecelahay inaan fursad siiyo ka qaybgalayaasha stuudiyaha ku sugan gaaxnuug ismaaciil xasan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore waxaan mahad u jeedinayaa ilaahay isku keenay halkan inoo suurtageliyay in isku nimaadno caawa ka qayb galno arrinkan mar labaad waxaan u mahadnaqayaa wasiirka qorsheynta qaranka Dr. Saad Cali Shire wasaaradda warfaafinta dhammaanteed oo iyo halwadeenada Xuseen Cabdullaahi Daqsi oo barnaamijkan aad iyo aad waqti u siiyey dhammaan halwadeenada ka shaqeynaya wasaaradda warfaafinta run ahaantii Saad Cali Shire wasiirka qorsheynta qaranka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in halka su'aalo ku weydiiyo waalow mar horeba aan su'aalo weydiiyey haddana waxaan islahaa kulli wasiirka qorsheynta qaranku run ahaantii gaabis aan isnaahno amba personal aan isiraahdo halkaas qorsheynta qaranka ka jirta inkastoo aad u yar tahay oo wasiirka kale ka jeclaa haddana kulli waxaan doonayaa in wasiirka weydiiyo su'aal taasoo ah kulli waxa la yiraahdaa Soomaaliya tira ninba meesha bogta ayaa balbasha haddaan dhalinyarada nahay xagga shaqada amba horta aad noo balbasha marka run ahaantii waxaan ku weydiin lahaa wasaaradda wasiir adiga wasiirkii qorsheynta qaranka run ahaantii wax qorshe ah ma ka yeelateen amba ma samaysteen kaasoo ku wajahan internship program for the students ka oo ah ardayda in loo siiyo volunteer inay ugu shaqeeyaan waxyaha dawladda iyo hay'adaha dawladaba kaasi ma idin qorsheysan yahay hadduuna idin qorsheysnayna maadaama ood ka tirsan tahay guddida ladmiisaanaha shaqa abuurka aad ka tirsan tahay qorshaha ma ku dari doontaan inuu barnaamijka bismillaahi kariim inaad samaysaan kaasi oo faa'iido u samayn lahaa dawladda oo ka faa'iideysan lahaayeen da'yarta aqoonta leh ee theory-ga soo baratay amba waxaa theory-ga buugta iyo nidaamka soo qaatay siday practical-ka ugu sameeyaan wasaaradaha run ahaantii annaga ahaana amba dhalinyar ahaana u noqon lahaa niyad samii dad shaqeynaya amba experience maadaama dadka sidan magaa recruitment-ga jiray marka hay'adaha amba magaranayay hay'adaha inala jooga waxay badanaa soo qaraan inay ku xidhaan dhalinyarada 3 years 2 years 5 years experience 5 sano 2 sano oo ah khibradda markaa ardayda maxaad inaad uga faa'iideysaan wasaaradaha dalka inaad magaranaysaa internship ka siisaan aad iyo aad baad mahadsantihiin wayahay wasiirka. بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال runtii wanaagsan oo muhiima waa run dhibaatooyinka maanta waddankeena ka taagan kuwa ugu horeeya waxaa ka mid ah shaqo la'aanta khaasatan shaqo la'aanta dhalinyarada dhexdeeda oo lagu qiyaasay ilaa 70% inay bilaa camal yihiin sababta dhalinyaradu ay u sababaha dhalinyarada u shaqo la'aadahay way badan yihiin sababta waayarinimo la'aantu waa ka mid oo warun saad u sheegtay shaqooyinka marka la soo xayeysiiyo waxa la yiraahdo qofku waa inuu leeyahay aqoontaas amba shahaadada waa inuu sito waa inuu jaamacad ka soo baxay مثلا oo kale isla markaana waxa la raaciyaa waa inuu leeyahay intaas oo sanado waayarinimo marka dhalinyaradu way leeyihiin aqoontii oo shahaadii way sitaan oo way soo qaateen laakiin taanay lahayn inta badan waxa weeye waa waayarinimadii oo ka maqan mushkiladaasi mushkilad inako kaliya haysta ma waa mushkilad dhalinyarada caalamka oo dhan haysta marka ugu horeysa laakiin in caalamka oo dhan haysta macnaheedu ma aha inaynu waxba ka qabanin waynu wax ka qabano sidee wax looga qabanaya markaa waxa looga qaban karaa qodobka soo jeebisay marka internship oo kale amba ardayda in fursad loo siiyo inay kasbadaan waayaragnimo intay jaamacadaha ku jiraan amba markay jaamacadaba ka baxaan oo hab shaqo qaran loo abuuro loo sameeyo si ay waarnimo ay u qaataan anu runtii waxaan qabaa arrinkaas in dawladda iyo jaamacaduhuba ay iska kaashadaan iyo ganacsataduba waayo
waxay noo soo baxay ilaa 4,000 ilaa 5,000 oo arday baa jaamacadaha ka soo baxa giddigoodba dowladdu ma wada siin karto internship aniga dhowr qof baa imika wasaaradda igala shaqeeyo oo dhalinyaro ah oo iskaax u qabsaa laakiin qof waloo aan qaataaba wuxuu iga doonaya sida qofka shaqaalaha ah kursi iyo miis iyo combyuutar iyo shaqo iyo ciddaba gasha qofka qof shaqaaloo kale marka 4,000 dhalinyarada ka soo baxa jaamacadaha dowladdu ma wada absorb garan karto ma wada qaadan karto waarinimo ma wada siin karto marka waxa loo baahan yahay ganacsada laftigeedu inay barnaamijka ka qayb gasho anuu waan qabaa runtii in qorshe qaran laga yeesho oo la iska wada kaashado sidii arrinkaa loo xaqiijin lahaa keliya waayarinimo yacni ka faa'iidi maayaan dhalinyaradu ee waddanka laftiisa ka faa'iidaya shaqada dhalinyarada laftigeeda intay ku jirto maxay dhahdaa internshipka markaas waxa way waarin inoo yaala waxaan ku raacinayaa mararka qaarkood dhalinyaradu iyagoo waayarinimo leh baan haddana xusin imika waxaa laga yaabaa in uu ninka dhalinyarada jaamacadda ku jiraa galabtii wax dhigo waxaa laga yaabaa reerkooda inuu ganacsi leeyahay oo ganacsigaa uu ka taakuleeyo kala shaqeeyo waa waayarinimo laakiin marka la yidhaha waayarinimo ma leedahay wuxuu odhanayaa maya laakiin wuu leeyahy hataa waxaaba laga yaabaa inuu reerkooda maamulaba taa laftii waa waayarinimo inaad maamusho reerka amba lacagtiisa maamusho amba dee amuurihiisaba aad maamusho marka taa lafteedu waa xirfad marka shaqo doonanayso aad tahay inaad had iyo jeer aad ogaato inaanad mataqaanaa yaraysanin amba aanad qaranin waayarinimada aad leedahay oo aanad waayarinimo ka soo qaadin un keliya haddaad meel ka shaqaysa waayarinimadu way badan tahay imika ka soo qaad xitaa hablaha weliba hablaha runtii inaga waayarinimo badan oo xilal badan bay hayaan xil kastoo aad hayso amba guriga ka hay amba qoyska ka hay amba ganacsi ka hay amba meel kale ka hayo waa waayarinimo waxa laga yaabaa in dad maamusho waxa laga yaabaa in hanti maamusho waxa laga yaabaa in lacag maamusho kadib waa waayarinimo sheego qoro adigu waad mahadsan tahay wasiirka qorsheynta qaranka doctor sacad cali shire waxaan ku guda jirnaa barnaamijka maqal dadkaaga markan waxaan u yeedhayaa arday ka tirsan ardayda jaamacadda alfa waa xasan cabdi faarax marka hore magacaygu waa xasan cabdi faarax waxaan dhigtaa jaamacadda alfa university college waxaan ahay ardaydii sanadka qaran jebisay marka hore waxaa mahad iska leh allah subxaana wa tacaala labaadka waxaan u mahadnaqayaa wasiirka qorsheynta qaranka doctor sacad cali shire wasiir waxaan doonayaa halka inaan kaa weydiiyo 2 su-aalood su-aasheeda hore waxa weeyaan inta badan waxaa jirta in hay-aduhu ay shaqaalaysiyaan dad ajaanib ah iyadoo la helayo muwaadin buuxin kara meeshii markaa taa maxaa kaaga qorshaysan talabaad aan ku weydiinayaa waxa weeyaan waxaa jira inta badan mashaariicda ay hay-aduhu bixiyaan ma wada sina gobolladu iyagoo qaar lagu magacaabo unreserved area sidaynu wada ognahayna dalkeen nabad baa ka wada jirtaa marka labadaas su-aalood baan kusoo koobayaa insha allah waayahay wasiirka bismi illahi raxmaan raxiim kolley wuu jiraa dareenka ah in shaqooyin badan oo dadkeenu qaban karaan aqoon-yahankeenna dhallinyaradeenna waayarinimo u leeyihiin aqoontii u leeyihiin inay hay-aduhu ay u qortaan dad aan somalilanders ahayn oo laga yaabo had iyo jeer carabka waxa lagu dhirtaa dad kenya ka yimaada amba kenyaan la carabka lagu dhirtaa aniga laftiga tuhankaasi wuu igu jiraa laakiin midna waa idin sheegaya waxaa jira takhasusaad fara badan amba xirfado fara badan oo aynaan lahayn oo dadka kale ay leeyihiin khaasan waddanka kenya la yidhahdaa wuxuu aad iyo aad miisaanka u saaray amba culayska u saaray waxbarashada marka runtii waxuu soo baxay dhowr jiil oo waxbarasho sarraysa leh innakoo keliya nooma soo shaqo tagaan afrika oo dhan bay u shaqo tagaan dhakhaatiirtooda ilaa saafrikay ka shaqaysa marka qof kasta oo aynu aragno oo xitaa weliba laga yaabo inuu dhallinyaro yahay oo u shaqeeya hay-adaha micnaheedu maaha wuxuu ku fadhiyaa kursi amba wuxuu qabanayaa shaqo inuu kaynu qaban kari lahayn runtii qaar baa jira takhasusad le u gaara oo aynu u baahan nahay laakiin
sharcigeennu wuxuu odhanayaa waana sharci caam oo caalamka o dhan runtii lagaga dhaqmo marka shaqaale loo baahdo mudnaanta koowaad waxaa iskale muwaadinka keliya shaqadu muwaadinku qaban kari waayo baa cid kale loo raadsanaya saasaa keenuna dhigayaa dee sharciyada waddamadoo dhammana ay runtii ay wada dhigaan arrinka runtii iminka innaka meesha inoo yaalla waxaana u xil saaran arrinkaa wasaaradda shaqada iyo bulshada ee dhaqangelinta sharciga noocaasa iyo immigrationka laftigooda waa iyagaada runtii u xil saaran arrinka iminka inoo yaalla waxa inaynu hubinno waa maxay shaqooyinka aynan xirfadooda lahayn inaynu u baahan nahay inaynu cid kale adeegsanno iyo waa maxay xirfadaha amba shaqooyinka inaku aynu qabsan karro ee runtii aynu xaqa u leenahay ee aanu u baahan inaynu ku baraarujinno amba sharcigaba ku dabaqno ciddii markaa maxaan idhahdaa cid kale soo qorata shaqa inaku markaa aynu qaban karro arrinka gobollada iyo mashaariicda iyo u sinaan la-aanta mashaariicda waa arrin jiro weeye gobollada barigu way ka mashaariic yar yihiin amba joogitaanka hay-aduhu wuu kaga yaryahay gobollada galbeedka waxay had iyo jeer sabab ka dhigaan nabadgelyo xumo runtii nasiib darro muddo iminka laga joogo sannado badan baa waxaa ka dhacay dhacdooyin gobollada sanaag sool iyo tog dheerbaba sababtay inay hay-adaha samafalkee markay halkaa joogay inay ka baxaan marka waxaad mooddaa rikoorkii halkaa inaga yaro xumaaday inuu weli taagan yahay laakiin runtii xaq maaha waayo xaaladdu xaaladdii maaha waa nabad waddanku waa nabad togdheer waa nabad soolla waa nabad sanaagna waa nabad way teegi karaan way ka shaqayn karaan muddo imika dhowr bilood laga joogo waanu isugu yeedhnay waxaanu kaloo u yeedhnay hay-adaha samafalka ee gobollada ka hawlgala ee waddaniga ah waxaanu ku baraarujinay in gobolladaas ay yihiin nabad inay ka hawlgalaan xitaa meesha aanay ka hawlgeli karin inay adeegsadaan hay-adaha samafalka ee waddaniga ah oo iyagu wax dhibaato oo mataqaanaa nabadgelyo xumi aanay haynin marka arrinka runtii waanu kuna baraarujinay insha allah waananu ku baraarujin doonaa waana laga yaabaa runtii muddo afka inaan shir kale isugu yeedhno waanu kaga dalbayno inay adeegooda ku fidiyaan gobollada bariga waayahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka maqal dadkaaga guuleed cumar cabdilaahi jaamacadda hargeysa bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka hore waxaan u mahadnaqayaa wasiirka sacad cali shire iyo bahda t v-ga qaranka barnaamijkan qurux badan inoo soo abaabulay waxaan kaloo mahadnaqayaa ardayda jaamacadaha kala duwan ka socota ee barnaamijka kasoo qayb gashay waxaan jeclaan lahaa wasiirka inaan hal su-aal weydiiyo oo ah hay-aduhu waxay bixiyaan mashaariic bay bixiyaan markaa sidaad sheegtay iyagu donors baa soo siiya laakiin iyagu mashaariicday fuliyaan marka idinku ka wasaarad ahaan hay-adaha la maamusha mashaariicda ay bixiyaan mana ku daba gashaan in mashaariicdaa sidii loogu talagalay ay u fuliyeen haddii ayna u fulinina maxaa tallaaban sharciga aad ka qaadan idinku ka wasaarad ahaan bismi illahi raxmaan raxiim sharciga hay-adaha samafalka maareeya runtii laguma dabaqin hay-adaha jimciyadda qurumaha ka dhexaysa iyagu heshiis gaara bay ku joogaan waddanka laakiin waanu ku dabaqnaa siyaasadihiisa iyaga laftigooda waanu ka dalbanaa wuxuu odhanayaa hay-addu sanad walba waa inayna siiso qorshaheeda sanadku markuu dhammaadana waa inay warbixinayna siiso arrinkaa runtii waanu bilownay dabaqaadiisa iminka sharciga hay-addu waa sanadle sanad walba hay-addu waa inay cusboonaysiiso amba caalami ha ahaato amba waddani ha ahaato hay-aduhu markay cusboonaysiinayaan sharcigooda waxaanu shardi kaga dhignaa inay noo keenaan warbixintii sanadkii hore sanad walbana waxaanu ka dalbanaa inay noo soo qadimaan bal qorshahooda sanadka soo socda badi way noo keenaan warbixintayna siiyaan waxay kuu sheegaysaa wixii uu qabsoomay iyo wixii aanu qabsoominba qaarkood waanu ku dabagallaa laakiin qaybta noo qaabilsan dabagalku
waa qayb runtii aada u kooban iminka waxaa nooga shaqeeya 2 qof oo keliya sanadkiina soo dhaafay markaanu wareysanay wasaaradaha waxaa ka dhaqan galay wasaaradaha dhowr waxaan 17 wasaaradood ilaa iyo 10 hay-adood baa jawaabna soo siiyey intaa waxaa ka dhaqan galay 149 mashruuc 149 mashruucaad bay uga badan tahay runtii awoodeeda waa 2 qof oo keliya dabagalkeeda laakiin hay-ad walba waxay la shaqaysaa wasaarad amba waxay ka shaqaysaa tacliinta waxay la shaqaysaa wasaaradda tacliinta amba beeraha waxay ku xidhan tahay wasaaradda beeraha amba xoolaha saas kale waxay ku xidhan tahay wasaaradda xoolaha marka shaqooyinka ay qabanayaan laftigooda runtii wuxuu xil ka saaran yahay wasaaradda mashruucu uu hoos yimaado marka wasaaraddu way la socdaan iyaga laftigooda anigoo keliya maaha laakiin wasaarad walba mashaariicda laga qabanayo dee aageeda amba intay u xil saaran tahay waanay la socotaa waanay dee ku dabagashaa laakiin inaynu ku dabagallo oo dabagalka aynu xoojino adkayno waa arrin meesha ku jira wey waxa aan ku guda jirnaa barnaamijka maqal dadkaaga waxaan la socodsiinayaa ka qaybgalayaasha waxaa iyaguna nagu soo biiray jaamacadaha golis new generation da'yarta wax ka barata amaba hore wax uga baratay qaarkood iyo jaamacadda aadna aadan waxaan jeclaan lahaa intii barnaamijku socday ayay inoo yimaadeen martidaasina waan salaamaynaa wasiir axmed bile السلام عليكم. عليكم السلام. إلهي بمهضنا بركة كواد. مقعي واحد بلا محمد ضحك صلاة جامعة ألف يونيفرسيتي. فكر ICT ديبارمنت. وسيرك. صدح سؤالات ومدي لها. مدن وسير واحد تاي وسير قشرينته. واحد يتساب بلانيكا. وقارن كانوا كشغالين أيوه. سيدو كلا واحد نور شيكتي إنا تصمي سعيد لبا استراتيجية. kuwaasoo long time iyo short time qaranku ma ku dhaqmaa oo wasaaraddu ma ku dhaqmaan istiraatiijiyadan aad dejisay iyo balaankan aad dejisay mise caada Soomaaligeeni baa wali socoto nin walba halkiisa isagu baa ka atoora talaabaan raacinaya waxa jira mudan wasiir hay'ado badan baa dalkeena jooga hay'ado badan oo yimaadaan maalin walba hay'ad cusub soo gasha bulsho ahaan Afrika marka la eegayo يعني قف دبك عدلي ما أنت ودك يمدو برشيد الواحد اللي كان مسنته يلا لقبا يا بقف كنينا إنه مصالح عادي كودنا ودين لكن وحيا له بويا هاي لباتوين كي هاي ده نقول هيان واحد كم يدوم بدنا وسير واحد شرتي هايدن لخاطر تان حدود كلها هنا كله ذلك إنه يكهول جلسة لبي لا تصنع الساعة واحد كهول جلسة هاي ده سيدي نوجنا هاي ودم بدأ علاده الرجاديين إنه قلنا لبي لا تصنع الحمد لله رب العالمين waxaan ku garaasay Hargeysa nabada welina way joogaa danteedii markii ka weyday waxa dhacday Soomaaliya dhan inay kala laabatay macalinagiina raacayso tiri wax ammaan oo ka jira ma jiraan laguma noolaan karayo lama joogi karayo taasina ay noo tahay yani sumcad darro weyn soo gaadhay dhaawacayni maxamudan wasiir idinka meel yaala hay'adaha wadanka jooga iyo kuwa soo galiyaba oo shuruuc aad u haysaan oo ku xakameynaysan oo kula xisaabtamaysaan ilaa inaga mudanti kooda dalka inaga leh dhaawac soo gaadhay waa mid inaga soo gaadhay mudan wasiir waxa kale oo jirta waxa tahay wasiir qorsheynta dal soo koryeynaa bulshadeena Soomaaliduna reer miyiga iska ahaan jirtay dhaqan baynu lahayn hase haatee dhaqanka waa laga soo gudbo magaalada baa la soo galay xoogaa gaab baa yimi keenina waynu ka nimi kii magaaladana weli lama inaan qabsan way nimanka reer galbeedku waxaana inoo bumbuuniyeen waa dhaqankoodii yar casriyeeyeen oo habeeyeen way ka shaqaysiyeen mudane wasiir dal wuxuu ku horumaraa iska wuxuu qabso bulshada iyo dawladda la isku xidho dhalinyarada iyo dawladda la isku xidho salahan dawladda maxaad siyaad baro kale 7 sano wadanka waxay kaga dhigtay wadan jira hase ahaatee markii dambe aqoon darro timi darteed iyo qabyaalado si fool xun dhex gashay way baabaaday wax kale kuma qaban waxay ahayd iska wuxuu qabso iyo dadkii iyo dawladda la mideeyay mudane wasiir ma idin qorshaysan tahay inaad soo celisaan barnaamijka iska wuxuu qabso ay dadkii dawladda noqdaan dad dalkii wada dhisanaya wax qabad wada laho taarget laho hal meel wada jeeda wassalaamu calaykum wa rahmatullahi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiirkaan kusoo dhaweynaya bismillahi rahmaani rahiim. 'Waa su'aasha ugu horreysay ah 'Waa
qorshihii qaranka loo dejiyey wasaaraduhu miyay dabaqaan mise ma dabaqaan way dabaqaan laakiin ma wada dabaqaan way dabaqaanoo wasaarad waliba sanad kasta waxay leedahay mashaariic iyada bajetkeeda ka soo aroora iyo mashaariic ay kaalmo ku hesho laakiin qorshaheenna qaran oo 5 sanadooda oo lacagta guud ku kacaya uu yahay 1.2 bilyan oo dollar inta badan waxaan ku talagalay inuu ka yimaado hay'adaha samafalka ah ama hay'adaha caalamiga ah 4 meelood bay tahay inuu ka yimaado meel waa dawladda meelna waa hay'adaha caalamiga amba deeq bixiyayaasha caalamiga meelna waa ganacsatada meelna waa qurba joogga marka inta u badan waxaan ku talagalay inuu ka yimaado hay'adaha caalamiga marka maadaama uu yahay waxaan gacanta kuugu jirin waxa laga yaabo si aad ugu tala gashay inaan u dhicin oo runtii umay dhicin saan ugu tala galay sanadkeena soo dhaafay oo kale waxaan ugu tala galay ilaa 240 milyan baan maalinaa waale inaan ka helo laakiin marka la xisaabiyo wixii mashaariic marka la dhaqan geliyay inkastoo runtii aan weli tiradu noo dhamayn imika waxay maraysaa dhowr iyo 30 milyan bay maraysaa waxa laga yaabaa boqolkiiba in 30 laga yaabo meelahaas marka la soo wada dhameystiranto inay fuleen marka dhinacna waxba inooga fulay laakiin intii aan ku talagalay weli inooma wada fulin kaas waa kaas laakiin himiladu waxa weey runtii inoo fusheynaka arrinka hay'adaha samafalka iyo hagardaamadooda iyo kiiskaad soo qaatay hay'adii MSF ee cusbitaalka Burco haysay khaasatan ee naga baxday dhawaan horta runtii dhibaatooyin baa ka soo gaaray Soomaaliya oo dhibaatooyinka waxaa ka mid ahaa dad shaqaalahooda la laayay iyo dad shaqaalahooda la qafaashay ayaa ka mid ahaa marka iyagu waxay arkeen waxaanay ka shaqeeyeen had iyo jeer meelaha dhibaatadu ay ka jirto marka kulli way ahayd inay dee iska filaan inay dhibaato kala kulmayaan maadaama kaba shaqeeyaan ama meel dhibaato kaba jirtaba laakiin kulli waxaad moodayay si ay u arkayeen in dhibaatada ka soo gaadhay ay dhaaftay xadkii marka iyagu ay u dul qaadan lahaayeen marka way ka baxeen nasiib darro inana way nagu dareen iyagoon weliba runtii aanayna siinin aanu intan ka warhayo wax notiisa oo dee hay'addu xitaa haba baxdabe waxaad inay tiraahdo 3 bilood ka bacdi baan baxaya dee ka tashada hawshii aan idin qabanayay amba idinku kafaala qaada amba dee cid kale kula galgasho marka runtii may sameyn si lama filaana ayuu baxday marka khaasatan goobaha caafimaadka ee togdheer khaasatan Burco oo qaabilsan dhinaca bariga oo dhan horta cusbitaalka aad buu hagaajiyeen ee waynaad sheegto wixii wanaagii lagu falayna aad iyo aad buu runtii hagaajiyeen oo bay naga kafaala qaadayba wixii loo yimin jiray cusbitaalada Burco ee Hargeysa laakiin si darro way baxeen anu waxaan qabaa runtii sida kaliya kaga gaashaaman karo dhacdooyinka noocaas oo kale waxa weeye inaku inaynu isku tashano وهدي بحتى عد كلا وحنا سينا سو بقول كي بين النقطة لباتن شنية لباتن واتك كمان كرت هذا يكون مع دبر سيبين المكان نقول سوق في العنين سينوب وحنا كالين تودي أو هاي يعني كابي تشرين مشاهرين شقالها لسيو عسبتال كبرعو يداوين يراشين كبا وحنوب بهنا هاي inaynu inaku cashuurta hadaynu nahay muwaadiniintii inaynu cashuurteena iska bixino dabeedna kor u qaadno qadarka aynu ku isticmaalno adeegyada bulshada sida caafimaadka oo kale tacliinta oo kale si aynu markaa uga maarano inaynu ku taageersanaano had iyo jeer hay'ad khaasatan arrimaha halbowlo sida caafimaadka oo kale ah oo arrin gacanteena ugu haysa marka halkeedu runtii waa mid gacanteena ku jira waxaanu u baahanahay isku filaansho
arrinka shuruucda dabaqaadooda innaku waxaynu ku maaraynaa hay-adaha samafalka oo dhan oo ay ku jirto hay-addan MSF sharcigii hay-adaha samafalka ee baarlamanku baaskariye 2010 madaxweynuhuna ansixiyey inuu kaasaynu ku maaraynaa kaasaa sheegaya markay ku imanayaanna shuruudahaad uga baahan tahay markay shaqaynayaanna shuruudahaad uga baahan tahay markay baxayaanna shuruudahaad uga baahan tahay marka kaas baanu ku maaraynaa annaku maxaa dhahay hay-adaha samafalka arrinka iskaa waxu qabso haa waynu u baahanay soomaalida maamaha bee biyo sacabaada kaga dherigtaa ayaa la yidhahdaa innaku wasan hadal kuu sheegayo wax badan baynu qabsan karaa haddii aynu qiro awooddeenna mushkiladda waxaa weeye awooddeenii baynaan weli qirin iminka awooddeenna waxaa ka mid ah dhallinyaradiina halkaa soo fadhida waxaanu leenahay ilaa 20 jaamacadood 20 kun oo arday ku jiraa laga yaabaa sanadkii 4 kun 5 kun baa ka soo baxa 4 kun 5 kun ee ka soo baxa sanadkiiba waa khayraad aynu leenahay waa yani waa wuxuu ilaahay inoogu deeqay subxaanahu wa tacaala waa hanti laakiin waxaad moodaa inaynan qirin inaynan yaqiinsanin inay tahay mataqaanaa inay tahay yani khayraad inay tahay marka horta waxaynu u baahannahay inaynu qiro innaku haddaynu isu geyno awoodaha ilaahayna siiyey subxaanahu wa tacaala iyo cilmiguuna siiyeyba muruq iyo maskax iyo maalba haddaynu isu geyno inaynu wax qabsan karro waddamada haru marayba mucaawino haroogumay marin waxay haro ugu mareen tacab bay haro ugu mareen iyo cilmi iyo iskaashi marka waxaynu u baahan haddaynu doonayno inaynu haru marro oo xaaladda maanta aynu joogno inaynu ka gudubno laga maarmi maayo inaynu isu geyno muruqeenna maalkeenna maskaxdeenna shicib dawlad dhallinyaro waayeel rag dumar intaba marka runtii arrinkaan waa arrin soo dhaweynayo dee kuuna raacsanahay waynu u baahannahay inaynu barnaamijyadii soo celinno heer qaran heer magaalo heer degmo heer gobol intaba iminkaba way jiraan runtii mashaariic fara badan oo dee dadku iska kaashadaan iskuullaa la dhisaa goobo caafimaad baa la dhisaa waddooyin baa la sameeyaa iyagoo dadku ay isku kaashanayaan kaasum aynu u baahan inaynu ballaadhin aynu qaramayno weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka maqal dadkaaga aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirka qorsheynta qaranka doctor sacad cali shire waxaan jeclaan lahaa inaan fursad siino haweenka markaan ka gudbo liiskii taxnaa oo tira yar igu hadhay dadkii soo qadimay imaatinka barnaamijka waxaa inagu soo kordhay iyaguna haweenkaas ayaan qaar uga yeedhayaa waa yahay khadra jaamacadda golis بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة الوزير لما سألت بك ويدين لعنه maxay tahay wax ma nooga sheegi kartaa intii aad xilka haysay saacada wasiir wasaaradda qorsheynta qaranka 4 ama 3 waxoo la taaban karo oo ay wasaaradda ku talaabsatay intii aad xilka haysay waxa jira su'aasha labaad waxa jira hay'ado ajaanib ah oo dalka ka shaqeeya kana tirsan qaramada midoobay qaarkood waxay ku shaqeeyaan Soomaaliya waxaana ka shaqeeyaan Soomaaliland ka howlgalaan maxaa wax looga qaban waayo kuwa waraaqo haysataan ku shaqeynayaan iyagoo Soomaaliland ka shaqeynayaan waxay haysataan waraaqo ay ku qortay Soomaaliya maxay tahay sababta wax looga qaban waayo dadkaas dadtahay wasiir waad maasan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim horta intii 3 sanadood wasiirka anigu aan ahaa dawladdan hogaaminaya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan yana uu madaxweynaha ka ahaa wax badan baanu qabanay runtii naga soo yaradaaday wasaaradda ahaan waxyaabahan qabanay waxa kamid oo ka koowa qorshaha qaranka anu markaan imi wasaaradda su'aashii ugu horreeyay weydiiyay shaqaalaha waxay ahayd haddii aynu nahay wasaaraddii qorsheynta qorshe ma leenahay jawaabtaan helay waxay ahayd maya marka waxaan ku dhaqaaqnay inaanu bilowno samayntii qorshihii qaranka waxaan kaloo samaynay aragtidii qarankeeda laftigeeda visionka ka horeeyaan baaragtada ka horeysan ba himilada ayaa ka horeysa qorshaha kaana waanu sameynay
waxaanu kaloo samaynay xagga maamul fidinta wasaaradda waxaanu gaadhsiinay wasaaradda shaqadeeda gobolladoo dhan oo marka hore waxay ku koobnayd xaruntuu keliya caasimadduu keliya koobnayd iminka gobol walba waxaanu ku leenahay 6dii gobol ee hore waxaanu ku leenahay gobol walba waxaanu ku leenahay xafiis baanu ku leenahay intii xafiisyo waaweyn baanu ku leenahay oo shaqaale ay joogaan 5 ilaa 6 ay joogaan ka shaqeeyaan xitaa gobollada kale ee aan weli baarlamaanka aan ka gudbin ee 7 ah waxaanu ku leenahay wakiilo baran iyo maxaan idhahdaa caynamana waxaanu ku leenahay saraarna mid baanu ku leenahay gabalina mid baanu ku leenahay marka horta saas baanu u ballaarnay adeegii meel walba waxaanu ka bilownay inaanu ka samayno amba aanu hawsheedii gallay sidii loo samayn lahaa qorshe goboleed iyo sidii loogu samayn lahaa guddi xarumar oo heer gobol ilaa heer degmo hoos loogu dhaadhiciyo marka runtii waxyaabahaasanu samaynay iyo waxyaaba kaloo ka badanbaba xagga sharciyada laftigeeda sharcigii lagu maareynayey hay-adaha samafalka kaan waanu samaynay markaanu nimi runtii baarlamanku ku jira laakiin waa dhammaystir waxaanu kaloo samaynay sharcigii xog ururinta amba statisticska marka runtii way fara badan yihiin haddaad gasho website-kayaga www.sl ministryofplanning.org waad arki doontaa mashaariicda faraha badan waxyaaba fara badan aanu qabanay hay-adaha arrinka hay-adaha horta hay-adaha kuwa UN-ka iyo kuwa caalamiga aan UN-ta ahaynba badi way ka shaqeeyaan Somaliland iyo Soomaaliya sida Ethiopia uga shaqeeyaan oo Kenya uga shaqeeyaan oo Uganda uga shaqeeyaan dee wadamada Afrika oo dhan inta badan way ka shaqeeyaan marka inay ka shaqeeyaan Soomaaliya wax bay noogala dhigan tahay in Ethiopia ka shaqeeyaan oo inagu dee ma oran karo amba annaka naga shaqeey amba Soomaaliya ka shaqeey waxa ka dhigan amba Djibouti ka shaqeey amba Somaliland ka shaqeey iyaga dee ikhtiyaarkaas kale laakiin markay ka shaqeynayaan waddankeena Somaliland waa inay ku shaqeeyeen shuruucdeena iyo nidaamkeena iyo sharcigeena waa inay u hogaansanaayeen hay'adda u hoggaansami weyda iyo ku dhaqmi weyda markaasuu dee sharcigu odhanaya markaa weynaanay dee inala joogin markaa tallaabo aynu ka qaadno iminka beri dhaweyto waa kii madaxweynuhu hay-adda ansom unbos berigii hore la odhan jiray laakiin kadib ansom loo bixiyey waa kii yidhi uma baahnin madaxweynuhu xafiiskoodana uma baahnin waayo shaqaday u xil saarantahay waxay ahayd shaqo runtii aan halkan looga baahnayn amba innaka munaasib baynu amba inugu waajahnaynbaba marka maadaama shaqadiinu aanay innaka nuguba waajahnayn ay ku waajahantahay waddan la yidhahdo Soomaaliya markaa Soomaaliya ka shaqeey halkan shaqadii kama taale marka ciddii aan ku dhaqmin sharcigeena amba shaqadeeda inaan u baahnayn sharcigan waafajinayn waayahay waxaan ku guda jirnaa barnaamijka maqal dadkaaga aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ka qaybgalayaasha iyo wasiirkuba fursadda qaaliga ah iyo waqtigooda ay u hureen barnaamijkan inay ka qayb galaan waxaan ku noqonayaa cabdisalaan saciid ma joogaa السلام عليكم وهرن مقعي عبد السلام سعيد عبد الله waxaan dhigtaa jaamacadda Alfa xagan waxa ku soo diyaarsaday 3 su'aalood oo ugu talagalay inaan weydiiyo wasiirka waxa jira hay'ado fara badan ama ururo jooga dalkeena waxa jira mashaariic ay wataan mashaariicdaas ay wataan wax ma ka bedeli karnaa waxna ma ka reebi karnaa waxaan inagu rabnana ma ku darsan karnaa waxa kaloo jira mashaariic ay hay'aduhu wadaan oo aan inagayna anfacayn amaba aan u baahnayn dalkeenu maxaa yeelay imka dalkeenu waa ammaan inta badan waxa jira hay'ado badan oo ka hadla kufsiga uma baahnin maxaa yeelay dalkeenu waa ammaan waxa jira hay'ado badan oo ka hadla gudniinka fircooniga kaasoo kalena uma baahnin mashruucyo inagu aan rabno ma ku fulin karnaa ama ma fulin karaan waxa jira ama dalkeena oo ah sumcad amaba dakhli u noqon kara waxa jira hay'ado fara badan oo dalka degan dhismayaasha ay degan yihiin iyaga laftirkoodaas kale taasoo kale shardi ma tahay in muwaadiniinta dalka degan ay dhismayaasha lahaadaan maadaama aanay hay-ado ahayn hay-ado wadaniya waxaa jira shaqaalaha hay-adda ka shaqeynaya ajnabiga wax mushaharku qaadanayo
shaqaalaha u dhashay dalka shaqadii uu ka ajnabiga qabanayay shaqa la mid ah hadduu qabanayo waxaa suurtagala in mushaharka kii ajnabiga inta la siinaya in ka yar la siiyo kan isagoo muwaadinka ah waxaa jira hay-adaha inta badan ka shaqeeya agricultureka sidaynu ognahay ama sidaan anigu aaminsanahay waxay dalka ku hayaan xaalufin la mid ah sida ay wadaan qolada geedaha jarta ee dhuxusha ka isticmaasha iminka waxaa jira hay-ado agricultureka inta badan waxay bixiyaan dadka siib dadka waxay ugu yimaadaan weji ah inay dadkan wax tarayaan siilka sidaynu ogsoonahay wuxuu baxaa hal mar halkaa mar labaad ma baxo ma la odhan karaa hay-aduhu siilkan ay bixinayaan ma anfacaya dadkeenna qofkii beerowlaha markaa midda kale hay-adahaasoo kale waxay sameeyaan xilligaa u soo go-o khayraadku ninka beerowlaha waxay bixiyaan deeqo inta badan markuu soo baxo deeqahaas waxay niyad jab u tahay ninkii beeraleyda ahaa markuu mar iyo lababa ku guuldaraysto khayraadkii uu soo saaro suuqa qiimo jaban ka noqdo ilaan mid kaloo bilaasha dadkii haystaane taasoo kale marka dambe wuxuu ku qancaya qofkii in hay-aduhu caawiyaan mar walba taasoo kale waa shaqa yaraan ay samaynayaan hay-adihii waxaa kaloo jirta dhaqamo fara badan oo ay noola yimaadaan hay-aduhu horta qof aad isaga ka og tahay inuu gaal yahay oo aad ka og tahay inuu yahay qof xun marna suurtagal maaha inuu adiga ku wanaajinayo taasoo kale may noo qorshaysay midda kale waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo fikrado aada u fiican ku haysa maskaxdooda wasaaraddu ma la tashataa dhalinyarta fikirkooda ma weydiisaa waan dhameeyey markaa wasiirkan ku wareejinaya wasiirka qorsheynta qaranka ee Dr. Saad Cali Shire waad mahadsantahay waa su'aalo badan bismillaahi raxmaani raxiim insha Allah ka jawaabi doonaa hay'adaha inoo yimaada mashaariicda ay noola yimaadaan wax ma ka bedeli karaa wax weynu ka bedeli karaa haa horta inta badan intaanay mashruuca aanay bilaabin waxay yidhahdaan waxaanu samaynaa la tashi oo idinka arkoo seminaarada faraha badan ee amba mansoor ka dhacaa amba maxaa yidhahdaa ambassador ka dhacaa amba imperial lagu qabto in badani waxay la xidhiidhaa arrinkaa la tashiga ay la xidhiidhaa hase yeeshee iyaga laftigoodu siyaasad bay leeyihin oo hay-ad baa laga yaabaa inay ka shaqayso tacliin keliya siyaasaddeedaaba ah waxaa laga yaabaa in weliba ujeeddadeedu ay sii tahay inay ka shaqayso tacliinta dadka waaweyn marka policyga la timi iyaga laftigeeda xitaa deeqbixiyaha laftigiisa ayaa shuruud lacagta ku siiya oo matalan wuxuu odhanayaa waxaanu caawinaynaa oo keliya iskuullada maxaan idhahday farsamada ka soo qaad marka lacagtii shuruud baa la socota iyana policy bay leeyihiin inana baahi baynu leenahay saddexdii baa la iswaafajinaya marka horta saas bay imika u shaqaysaa laakiin waxaanu jecel lahay innaku oo imikaanu ku boorinaa inay naga aqbalaan deeqbixiyayaashu inaana iyagu inoo go-aamin mashaariicda keliya lacagina siiyaan weliba ma lihiin lacag farta naga saara waxaanu lacagta idinku haya waxaanu idiin sheegaynaa baahidayada matalan waxaan leenahay noo qoda ceel annaka ceelna siiya ceel baa ceel nooga qoda laascaanood idinku qandaraaska bixiya laakiin ceelka markaa dhammaystaan furihiisana siiya noo dhameeya anu saasaan jecelahay kaasaan dooni maka inuu guuro habkaas marka waad naga maqneed baan u malaynayaa waxaa jira imka sanduuq la yidhaahdo Somaliland Development Fund way iska kaashadeen dawladda Ingiriiska iyo dawladda Danishka oo $250 milyan ay yada ku jiraan oo sanadkan aanu go'aaminay inaanu mudnaanta ka dhigano annakana la weydiiyey maxaa idin mudan baa la yidhi waxa noo mudan beeraha iyo xoolaha iyo jidadka iyo deegaanka ayaa noo mudan 6 mashruuc baanu gudbinay 6 mashruuc baa way naga yeeleen marka waxaan doonay runtii inaan taa u guuro
laakiin inta aynan u guurin mashaariicdu waxay noqonaysaa wax la wada leeyahay ayay noqonaysaa arrinka maxaan idhahdaa mashaariicda aynan u baahnayn inagu horta runtii wax walba maanta waynu u baahanay waxna aad baynu ugu baahanay waxna dee aad uguma baahnin oo baahida baa iyada lafteeda kala darajo ah arrinkan matalan soo qaadee wacyigelinta kufsiga horta kufsigu wuu jiraa waa nasiib daro dhaqan ahaan iyo diin ahaan midnaba maaha wax mataqaanaa dee ka soo arooraa taariikhdeena laakiin waa wax iminka dhaca weeye oo dee joornada lagu qoraa maalin walba waa inaynu inaku dadkeena ka wacyigelino oo masaajidada dadka laga wacyigeliyo oo iskuullada laga wacyigeliyo oo telefishinku ka wacyigeliyo oo raadiyogu ka wacyigeliyo oo joornaalku ka wacyigeliyo waa runtii arrin wacyigelintiisu innaka inoo taala in laga hadlaa mashkilad maaha laakiin waxay nagu ceeba cid kale inay ka hadasho waayo waxay inu kalaynu maarayno sidoo kale gudniinka fircooniga ah gudniinka fircoonigii waa caadooyinka xunxun aynu leenahay caado islaamiya maaha oo dee mashaaqdu saasay dhahdaan caado islaamiya maaha waana caado runtii nasiib wanaag iminka yaraanaysa waana caado u baahan dadka in lagu wacyigeliyo waayo waddamada kale aynu ku bahownay diinta islaamkuba siday u badan yihiin ma laha waxaa le waddamo yaroo afrikaana u badan ayaa le caadadaas markaynu hadan dad muslimiina nahay dee waynu raacno sunna diinteena maxay dhahay diinta islaamka dee sunnaha waynu raacno maaha inaynu caado diin ka dhigano ka hadalkeeda laftigeeda dee way fool xun tahay inay cid kale way fool xun tahay in cid kale ka hadasho laakiin inaku dee waynu ka hadallo oo iska wacyigelino in barnaamij aanu yeelano wacyigelintaasuna dee waa arrin qaran ahaan inoo wada yaalla aqoon-yahanka u yaalla idinku ay ka mid tihiin xagga dhismayaasha waxaa waddanka iminka jooga waxaan filayaa inay yihiin 82 hay-adood oo caalami ah iyo ilaa 20 hay-adood oo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ah isu geen waa 100 qiyaastii inta ku jirta daara iyagu ay leeyihiin way yaryihiin kulen intaan ka warhayo unicef oo ka dhisatay daar weyn halkaa maxaan idhahdaa masalla ka dhisatay ayuuma runtii anugu aan horti intaan ogahay ayaa jirta waa laga yaaba 2-3 kilo aan ogeyn inay jiraan inta kale waxay ku jiraan guryo kira ah dee xitaa hadday daar ka dhistaan halkan innakaa bay noo fiican tahay way noo dhaxlo hadday 2-3 milyan daar ku dhistaan dee innaka iskale inay la guri maayaani oo dee way maal gashadeen oo 2 milyan dee ku dhisayeen dadkeena gashay wastaadkeeni iyo shaqaalaheeni iyo kuuligeeni deedna daartiina innaka iskale innakaana ka shaqaynayna markaa in lagu xidho shardiga ah daar kama samaysan kartid waddanka runtii ma qabo inay dani inoogu jirto ana waxaan qabaa inoo sameeyaan in yar baa wadee samaystaba arrinka mushaharada aan sinayn ee mushaharada muwaadinku ay ka yar tahay mushaharada qofka ajanabiga ah sida qaalibkaa way jirtaa hay-aduhu inta badan waxay leeyihiin sharci ku saabsan dhinaca shaqaalaha iyo mushaharada oo qofka internationalkii wuu ka mushaharo badan yahay qofka localka ah xitaa kenya 2 qof oo isku darajo ah oo isku aqoon isku waayaragnimo ah oo midna yahay international midna yahay qof muwaadin oo local ah oo shaqo wada qabanaya waxa qaaliba qofka muwaadinkii inuu ka mushaharo yar yahay qofkaan muwaadinka ahayn waxyaaba badan bay tixgeliyaan oo qofkaan muwaadinka ahayn meel fog buu ka yimi reerkiisii buu ka yimi cashuuruu bixiyaa wuxuu leeyahay tixgelin buu leeyahay gaara marka policygaasi wuu jiraa laakiin de haddii duudsi uu jiro oo yacniga hay-adaha qaarkood dadkeena ay siiyaan mushahar aad iyo aad u yar inkastoo dadka mutacalimiinta badan ayna yeelinbaba hadduu jiro cid la duudsiyo oo xaqooda la duudsiyo dee wasaaradaynu leenahay u xil saaran inay xaqooda u raadiyaan arrinka xagga beeraha
iyo abuurka ay bixiyaan oo aan dub loo abuuri karin arrinkaas runtii wuu jiraa seedsna way bixiyaan waa hybrid seeds inta badan aan dub loo beeri karin arrinkaas runtii innakaa loo baahan yahay wasaaradda beeruna way ku tallaabsatay horta abuurkeennii hore inaynu ilaashanno oo aanu inaga lumin oo aynu kaydinno oo badinno oo harumarinno oo dib u soo celinno mashaariicdii tijaabada iyo fidinta iyo abuurka kaydkiisa waa mashaariic runtii aynu u baahanay inaynu xoogga saaro wasaaradda beeraha waxbay ka bilowday laakiin waa arrin maxaa lahay runtii aynu u baahanay wax weyn aan ka qabanno arrinkaas seriouskuna waa arrin caalamka oo dhan maanta inaku keliya gaar inaguma ahe runtii haysta arrinka maxaan idhahdaaye inay heeduhu bixiyaan raashin bilaasha marka waxay noo soo go-aan waa tuhun caanahoo jira runtii weli daraasad aan ku xaqiijinayno aanba ku beenino maanaan samaynin laakiin had iyo jeer wax carabka lagu dhiftaa hay-adda w f b ayaa carabka lagu dhiftaa hay-adda w f b inta badan raashinka waxay siisaa iskuullada ay ku kabtaa iyo cusbitaallada amba goobaha caafimaadka iyo raashin ay siiso ay tidhaahdo food for work waa raashin loogu talagalay dadka iskaa wax u qabso amba jidad ku samaynaya amba balliya ku qodaaya amba mataqaana mashaariic kale samaynaya anigu waxaan is leeyahay raashinkaa ay bixiyaan maaha mid xilliyeysan aniga runtii lamaaka oo xagaagana yaraada jiilaalkana bataan runtiisa ilamika haddii aanay abaariimanin arrinka kale runtii ay raashinka ku bixiyan waa marka aafa ay timaado marka haddaanay aafa imanin runtii u malayn maayo inay eegtaan un xilliga dayrta ee waxay noo soo go-aan taa ma hubo laakiin hadday jirto waa arrin u baahan xaqiijin iyo wax ka qabasho annaku waxaanu jecellahay hay-adda w f b waa iyagana waanu kala hadalnay inaanay raashinba inoo keenin baba ee raashinka ka iibsadaan beeralaydeen oy dhiiri geliyaan wax soo saarkeenna oo xitaa dadkeenna beeralaydii haddii aanay awoodi karin inay dalag badan ay soo saaraan oo aanay haysan amba cagafyadii amba maalkii ay u baahnaayeen amba bacrimintii inay xitaa u sii qadimaan inay qadimaad ay sii siiyaan siday wax u beertaan oo dhiiri geliyaan runtii saasaan jecellay waanaanu kala hadalnay mar kalena waanu kala hadlaynaa innanka mashkiladda ugu weynayna haystaa waxa weeye ee waddankan haysataa khaasatan xagga cuntada waxaynu dibadda ka keennaa ilaa 600 oo kun oo tan oo dhowdhow oo cunto ah waa 560 kun oo tan oo cunto ah qiyaastii waxaa ka mid ah cuntadaas khudrad baa ka mid ah waxaynu soo iibsanaa iminka tamaandhada iyo saladhka xilliyada weliba qaarkood bay u badan tahay waxaynu soo iibsanaa ukunta bed baynu soo iibsanaa waxaynu soo iibsanaa maxaan idhahdaa toontaynu soo iibsanaa oo doonya keenaan markaa sidii aanu cuntada isaga fillaan lahayn waynu ugaba maarmi lahaynbaba cid cunto inoo keentaba waddankeenana waynu ka soo saari karraa cunto inagu filan waa arrin qorshihiisu inoo yaalla innaka runtii waad dowlad ahaan iyo dadba mahadsan tahay waxaan filayaa waktiga aynu haysanaan aad buu yaryahay in saddex su-aalood aynu ka dayno hal su-aal lagu soo koobo haweenka gabadha xagga dambe farta ka taagaysa gabadha adiga ahaa asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirka iyo bahda t v-ga iyo dadka halkan isugu yimid marti sharafta halkan isugu timid dhammaantiin waad salaamantihiin salaan dabadeed waxaan ka socdaa magacaygu waa ayaan axmed cabdi waxaanan ka socdaa jaamacadda armas kuliyadda dhaqaalaha ardaydii ka qalin jabisay sacaadat lusiir halkan su-aalahan kaa weydiinaya waxaa ka mid a magaaladeena hargeysa waxaa jira
meelo badan oo afka qalaad waxaa lagu yidhaaho urban islamis meelaha ay dadku meelaha cidhiidhiga ay dadku isugu ay sida foosha xun u degan yihiin dadkaasoo aada u tabaalaysan misena aan haysanin biyo ku filan ama biyo wanaagsan aan haysanin caafimaad waxbarasho waxyaabihii ay u baahnaayeen oo dhan marka social welfarekooga maxay dowladdaadu ka damacsan tahay ama wasaaraddaadu taasi waa mid ta kale arday badan baa soo qalinjabisay sanadkan aynu joogno dad badan oo inooga soo qalinjabiyey sekondariyadu inta badan qaar badan waxaa dib u reeba dhaqaale xumo maxay dowladdu ka qorshaysay ardadaa ka hadhaysa waxbarashada dadka waxbartay ilaa waa human resourcekii waddankee taana maxay ka aaminsan tahay wasaaraddaadu taan kusii daray waxa weeye import iyo export marka la eegayo waddankeenu wuxuu dhoofiyaa xoolaha nool laakiin waxaynu soo dhoofsanno ayaa aada u tiro badan maxaynu ka qorshaynay inaynu importkeena hoos u dhaadhicino maxay nooga qorshaysan taana waanu ku weydiinaynaa waad mahadsantihiin dhammaantiin mahadsanid wasiirkaa kusoo dhaweynaya bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay arrinka urban islamiska amba meelaha la degan yahay ee lagu xoonsan yahay ee aan nidaamka wanaagsanayn dadka ku nool inta badan ay sabool u badan yihiin sida imka state house oo kale waa arrin runtii jira inaguna soo badanaaya laba sababoodba way keenaan mar aafaa keenta abaar baa dhacaysa dadka way barakacayaan dabeedna magaaladay soo gelayaan inta badan magaalada ugu dhowbeed ee tagaan qaarkoodna waaba dadkii dagaaladii berigii hore ka soo noqday xeriyii qaxootiga ka soo noqday etoobiya oo dabeedna weli meelaha degan sideedabana waxaa iminka soo badanaya urbanizationka amba magaala imadka ayaa badanaysa miyigii waa laga imanaya iyo beerihiiba waa laga imanayaa dadku markay magaalada yimaadaan intooda badan ma awoodi karaan inay kiraystaan guryo wanaagsan amba xaafado wanaagsan ay galaan dabeedna waxay ku ururaan xaafadaha noocaas oo kale ah wax ka qabadkoodu runtii waa arrin u baahan in wasaaraduhu guud ahaanba iska wada kaashadaan dadka laftigoodu degan xaafadahaas iyagu laftooda ay ka qayb qaataan hadday tahay xagga biyogeynta adeegyada caafimaadka adeegyada waxbarashada security-ga ama nabadgelyada jidadka nadaafadda waxaasoo dhan waxaa jira wasaarad la yidhaahdo wasaaradda dibudejinta amba triblar oo inoo qaabilsan meelaha sidaasoo kale loo degan yahay dadka degan ee saboolkaa daryeelkiisa dabcan innagu waxanu nahay waddan runtii saboola oo aan social welfare programmeska amba mashaariicda daryeelka ee waddamada harumare ay leeyihiin aan waktigan xaadirkaa awoodi karin waddamada harumare waxa laga yaabaa in la yidhahdo qofku haddii dakhligiisu uu heer ka hooseeyo waa in loo kabo waxa laga yaaba inay siyaasad leeyihiin odhanaysa qofna waa inaanu derbajiif noqonin qofna waa inaanu guri xun ku noolaanin laakiin ninku runtii weli dhaqaaliheenu inoo saamixi maayo darajada inaynu gaadhin laakiin taa micnaheedu maaha inaynan waxba ka qaban karin sidaan kuu sheegay dawladdu waxay u xilsaartay wax ka qabadkooda maxaa la yoola kaashanaya inta badan hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa deeqbixiyaashaaba sidii bal loo siin lahaa adeegyada ugu yaraan bulsho ee caafimaad waxbarasho biyo marka taas waa lagu hawlan yahay inkastoo dee ay jiraan runtii xaafado badan aan weli helin lakin anigu waxaan is leeyahay sidii marka hore baan idhi waa arrimo aynu u baahanay bulsho ahaan inaynu iska kaashano oo xitaa xaafadahaasu meelaha ay ku yaallaan kuwa ku dhow dhow hadday ka war hayaan jaarkooda way jiraan dhalinyaro runtii saa samaysayna oo guri guri looga warhayo guryaha qaar baa laga yaabaa inaan maanta laga qadin amba dabba la saarin 2 casho oo guri guri looga warhayo oo dabeedna bulshada ku wareegsan iyagu ladani marka ay reeraha daryeelkooda ka shaqeeyaan ba ku dadaalaan
waxa laga yaabaa amba dee ay tahaybaba inay noloshooda markaa at least ay ku noolaan maaragtay nolol dee iska ladan oo aan dee bakti aan ahayn markaa runtii waxaan qabaa waa arrin policy nooga baahan horta marka ugu horeysa magaalo imadku waxaa loo baahan dadkii nagu dhiirigeliyay joogaan dee miyigii iyo tuulooyinkii iyo beerihii oo waxay magaalo ugu imanayaan halkaa loo geeyo waxa aafooyinka keenayana in laga hortago horta waa policy guud bay runtii ay u baahan tahay hase yeeshee xitaa markay dhacdo waxaa loo baahan yahay in dadweynaha iyo dadka aafadu soo gaadhay iyo dowladduba iska kaashadaan waanu ka yeelano aniga maxaan dhahdaa policy guud insha allah dhaqaaleynu markuu korana the social welfare program ayaanu u samayn doonaa haddii aan markaan u gudbo ardayda baa tidhi aniga aan awoodin jaamacada inay galan soo ma kuwaad sheegaysaa ha iyagoo xarfaana laga yaabo dardigu wanaagsan yahay oo maskax badan yahay haddana inaanu jaamacaddii awoodi karin way jiraan ardayda noocaasi laakiin wasaaradda tacliinta iyo jaamacaduhuba waxay leeyihin scholarship programs marka inkastoo aan la wada dabooli karin waxaa jira arday fara badan oo sifadaa leh oo jaamacadaha iyo wasaaradduba ay u suurto geliyaan inay mataqaanaa waxbarasho ay helaan taa waxuuna runtii kaga baxaynaa haddii waddankeena dhaqaalihiisu uu kor u kaco oo markaa reer walba suurtagal ay u noqoto inuu ilmahooda jaamacad u diro ambaba dakhliga dawladda soo gelaya uu sarreeyo oo ay noo suurto gasho inaan bilaashba ka dhigna waxbarashada sidaan iminka uga dhignay primariga iminkaba intii aan primariga laga dhigin dad badan baa jira waan awoodi jirin hadda carruurteedu waa bilaash waxbay bartaa insha allah waxaan rajaynaynaa markay awoodda inoo saamaxdo in ilaa jaamacaddu firi ay noo noqoto oo qofnaba lacagtu aanay carqaladba ku noqonba arrinka importka iyo exportka runtii taageerada aynu ku taageersannahay wax dibad laynooga keeno oo aad ka arki karto iminka haddaad dukaamadan yarare carwooyinka aad gasho ee sharafyadu wada buuxaan ee qasacada iyo qardaas ka buuxaan ee mid keliya aynaan samaysanin markaad eegto waxaad odhan kartaa runtii waa aafo qaran waa mashkelad waana mashkeladda keenaysa shaqa la-aanta waayo haddaynu wax walba debadda ka keenno oo dad kale ku soo tabcaan oo ka shaqeeyaan oo innaku aanu noqonin mujtamaca mustahlikiina wuxuuna cuna laakiin waxba soo saaran dee habkaa hor ugu mari mayno waxaynu had iyo jeer aynu qarka u saaraanaynaa inaynu maxaa dhahay dalow ka dhacno waayo waxay nagu filan in laynaga xidho haddii cuntada laynoo keeno laynaga xidho imka tailand ay tiraado in bariis ba idinka yimi maayo dadkayga u baahan maxaynu samaynaynaa xitaa kalluumaynu dibadda ka keenna waynu samaysan karnaa xitaa milixi baynu ka keena waynu samaysan karnaa anu waxaan qabaa runtii inaynu siyaasad ka yeelanno siyaasaddaas oo ah horta inaynaan dhiiri gelin wax soo dejinta in cashuurta kor loogu qaado wax allaaliya wixii waddankeenna ka soo bixi kara xitaa intaynu inaynu joojinno anu waxaan qabaa runtii inaynu joojinno matalan in ukun amba beed dibad laga keeno amba digaag dibad laga keeno amba khudra dibad laga keeno maxaa looga keenaya innagaa samaysan karree waxaa kaloo aan isleeyahay waa laga qaban karaa arrinkaas inaynu dhiiri gelinno wax soo saarka inaynu dhiiri gelinno oo iskaashatooyinkii samayno oo dib ugu noqonno oo ganacsatadana maalqabeenka ee laakiin maalka ka helay ganacsi soo iibi sii iibi oo keliya oo laga yaabo inaanay aqoon badan aanay u lahayn siday u maalgashan lahaayeen amba beeraha amba xoolaha amba kalluunka iyaga laftigooda lagu dhiiri geliyo baan qabaa iyo lafteeda waxaan qabaa inaynu dee ka shaqayno sidii maalgeliyaal maalgashada waddankeenna beerihiisa iyo xoolihiisa iyo kalluunkiisaba iyaga laftigooda aynu ka shaqayno sidaynu kasban lahayn inuu keeni lahayn oo u fududeyno markay waddanka yimaadaan siday shirkada u samayn lahaayeen siday dhul heli lahaayeen siday shaqaale heli lahaayeen siday sharciyada loogu fududayn lahaa marka ilaa iyo aynu arrinkaa wax ka qaban imika waxay noo daboolaa waxaynu dibadda ka keenno xawaaladaha dibadda laga soo diro haddii xawaaladu istaagto beryahani waxa laga hadlayaba bankigan la yidhahdo barclays
oo xawaalada Soomaaliya badan isticmaalay inuu kaba xidhayo accounts haddii accounts kale naga xidho oo lacagta ay noo imanaysa ay istaagto maxaynu ku siibsaneen dhib ay qabsanaysa marka runtii waxaan u baahanahay inaynu wax soo saarkeena badino yareyno waxaan dibadda ka keenayno inagu ku dadaalo inuu noqdo kuwa wax dhoofiya ma ku wax loo soo dhoofiyo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirka qorsheynta qaranka Sacad Cali Shire waxaan ku guda jirnaa barnaamijka maqal dadkaaga jaamacadda adna aadan waxaan u yeedhayaa Yaxye Maxamuud الرحمن الرحيم halkan marka waxaan ka salaamayaa wasiirka bahda TV-ga iyo dhammaan dhalinyarada kale ee halkan soo ajiibay iyo kuwa TV-ga naga daawanayo su'aasheedu waa su'aalihii hore la xiriirsanaa saacad wasiir waxaan ognahay ama dhalinyarada aad uga hadlayeen shaqo la'aan waxay ka hadlayeen hay'adaha dalka ka jira ajnabiga ama UN-ka runtii anigu intaan dalka soo joogay taarikay waxaan arkayaa hay'adaha dibadda dadka xayeysiinaya shaqaale ka qaadanaya suuqa qofkii loo baahnaa qaadanaya waxaan arkaynaa mashaariicda hay'aduhu bixiyaan inay xukuumadda ku xidhaan inay xayeysiiyaan laakiinse ma arkaynaba ama goor ay ma doonto ma garanayno in xukuumaduhu ay soo xayeysiiyaan si ay u helaan dhallinyaradii aqoonta u lahayd ma jirto xafiis qura wasaaradeed oo qof u qaadanayo soo shaqaaleeyo ma jiro qof aqoon-yahana oo dalkiisii ku soo noqday oo doonaya inuu si tabaruca ama si volunteera uu u yimaado shaqo oo uu helayo ilaa uu reernimo iyo soo maro dee waddooyin kale markaa saacad wasiir goormeen rajeynaynaa ama xukuumadaha ama qorshe ahaan inay xukuumaddu si bride ah qof experience-kii leh khibraddii loo baahnaa xilligii loo baahnaa in la soo xayeysiiyo oonu arkayno dhallinyaradii oo la qaadanayo boosas la soo xayeysiiyey suurtagal ma tahay shaqada dowladda gaar ahaan tii hay'adaha inoo dabayso waa koo mahadsantihin wasiirkan ku wareejinaya